أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. waxaan isku dayi doonaa inaan si kooban aan u macneeyo aayadaha, sharaxna aanan ku dheeraanin haddii ilaahay raalli ka noqdo. waxaa taa igu kalifaya iyadoo aan arkay arday badan oo jaamacadaha dhiganaysa, arday badan oo maxadyada dhiganaya, iyo dad badan oo aan wakhti badan haysanin oo haddana jecel inay ilaahay luqadiisa fahmaan, wuxuu ilaahay ka raba ay gartaan, qowlka ilaahayna ay macnayn karaan, hadal badanna aan time iyo wakhti u haysanin. waxaan isku dayi doonaa erey kastoo af carabiya inaan af soomaali u raadiyo wixii aan waayo mooyaane. laqbadana waan isu geygeyn doonaa biidni illaahi tacaala. waxaynu ka qalin jebinaynaa waxa weeyaan barashada kalaamkii ilaahay. ballanna waynu haysannaa calaa lisaani rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam oo inoo ballan qaaday ou nebigeennu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah. waxa idinku khayr badan uunka waxa ku nool, waxa ugu khayr badan ruuxa ilaahay kitaabkiisa barta iyo ka baraya. mar kalena rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi adduunyadu waa malcuuna, waa wax la nacladay oo naxariista ilaahay ka fog, ilaa bidikri illaah wamaa waalaah, dikriga ilaahay iyo wixii la xidhiidha, wa caalimun wa mutacallim, iyo nin diinta ilaahay baranaya iyo ka baraya. ruuxa kitaabka ilaahay baranaya iyo ka baraya makhluuqaadka iyo uunka oo dhan baa ilaahay dembi dhaaf u weydiiyo u duceeya, xata alxiitaan fi lbaxr, ilaa iyo kalluunka badda ku nool waxay ilaahay u baryaan, dembi dhaaf u weydiiyaan oo ay u duceeyaan ruuxa ku mashquulsan ee ku tacalluqa barashada kitaabka alleh iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam. marka waxaynu rabnaa in sha allahu hadduu ilaahay ina doorto inaynu qowmkaa ilaahay jecelyahay aan ka mid noqonno biidni illaahi albaari. kitaabkan qur'aanka kariimka ahi waa 114 suuradood, 114 suuradood. suuradahaas laba qaybood ayaa loo qaybiyaa. qayb waxaa la yidhaahdaa maki, waana 68 suuradood weeye. inta kale ka soo hadhayna madani baa la yidhaahdaayo waa inta, waxaana looga jeedaa 13 sannadood ee nebigu maka ku noolaa qur'aankii soo degi jiray ee soo degay ayaa magacaa la siiyaa, maki baa la yidhaah. markii uu nebigu maka uu ka haajaray ee madiine uu u guuray, qur'aanka soo degay waxaa la yidhaahdaa madani baa la yidhaahdaa. sidaasaa qur'aanka loo kala qaybiyaa. goorta marka aan ku idhaahdo suuraddani waa maki ama suuraddani waa madani, mar dambe kuugu celin maayo, waa inaad ila socotaa inaan u jeedo 13 sannadood ee maka qur'aankii soo degay bay ka mid tahay. madani haddii lagu yidhaahdana 10 sannadood ee madiina qur'aankii soo degay bay ka mid tahay. sidaasaa istilaaxeen maxaan ku erebixintu ay inoo ahaan doontaa. bisinka maantuun baan yacni macnayn doonaa. inta kale ee bisinku igu soo maro qur'aanka waa dul maraya. wuxuu qur'aanka kariimkaa bisinku ku soo noqdaa 114 jeer. 113 suuradood bisinka way ku bilaabmaan marka laga reebo suuratu baraa ama suuratu tawba oo iyadoo aan bisin lahayn. ha yeeshee qur'aanka suuratu namli aayad ka mid ah ayaa bisinka oo kaamila bismi illaahi araxmaani araxiim ay ku soo noqotaa. innahu min sulaymaana wa innahu bismi illaahi araxmaani araxiim. sidaasuu markaa aayaddani ay noqonaysaa 114 jeer ayay qur'aanka kariimkaa ku soo noqon doontaa. waana aayad fadligeeda aad ka fahmaysaan jamiica suwari alqur'aani ila atawba bisinkaa ugu horeeya. nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam shay kasta oo dan laga leeyahay ama muraad iyo barako laga maagan yahay oo aan bisinka ilaahay lagu bilaabin fa huwa abtaru. go-aan iyo macguul lagama gaadho, waa daba go-an yahay.
marka bisinka hal mar baan macnaynayaa oo maanta insha Allah dibna ugu noqon maayo waan dul mari doonaa waxa kaloo aan macnayn doonaa a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim oo aan misxafka quraanka ku oolayn suuradahooda iyadoo amara ay ku timi fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billah haddaad quraanka aqriyayso a'uudhu billahi akhriso taana mar baan macnaynayaa dib ugu noqon maayo insha Allah ta'ala waxaynu ka bilaabaynaa suuratul faatiha oo quraanka awalkiisa marka tartiibta loo eego awal iyo aakhir baa quraanka loo qaybiyaa awal iyo aakhir awal iyo aakhirku waxay ku kala rogmaan wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada wal yatalattaf aayadaasay ku kala rogmaan awalka iyo aakhirku marka awalka waxaan ka bilaabi doonaa suuratul faatiha markaan suuratul faatiha aqriyo waxaan dib ugu laaban doonaa aakhirkan soo bilaabaya oo suurat annaas baan ka bilaabaya sababtuna waxay tahay baahida ugu badan quraanka ugu badan ee dadkeenu ay barteen markay macaamadaha ku jireen waa inta hoose weeye waana intay ku tukadaan ruuxu waxaanu aqriyayo hadduu macnihiisa fahmayana wuu khushuucaya haddii aanu macnihiisa fahmayna waxa laaliya wax macnaa u kordhin maayo maadaama layla nahaar aynu la noolahay aakhirka kitaabka quraanka ah waxa ila fiicnaaday inaan aakhirka marka hore jilcino si ruuxa salaada tukanaya ama quraanka akhrisanaya uu macnaha kalaamka ilaahay uu u fahmi karo ama ugu khushuuci karo suuratul faatiha laba jeer baan macnayn doonaa haddii ilaahay yidhaah markan maanta aynu bilaabayno waan tafsiirayaa marka aynu khatimayno suuratul baqara aan dhammeeyana waan macnayn doonaa sababtu waxay tahay suuraddan suuratul faatiha laba jeer bay soo degtay sida culimada tafaasiirtu ay tilmaamayaan mar makay ku soo degtay oo waa maki marna madiinay ku soo degtay oo waa madani markii ay maka ku soo degtay waqtigii salaada wax cibaado ilaahay ina faray oon tawxiidka ahayn salaada ugu horeysa soomka iyo sakada iyo maxaan ku dhahay xajka iyo kuwaas oo dhamo madiinay ku soo degeen acmaal la qabto cibaado ah oo waajib ah oo farad ah waxa ugu horeeyay salaaduna waxay ku soo degtay maka zamankii la oran jiray caamul xuzni ee nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam labadii garab uu gaashaansanayay uu waayey sayidina khadiija radiallahu tacaala canha iyo adeerkii abu aalib markii ay dhinteen ee ay gaaladu ku soo dhiiradeen ayaa ilaahay wuxuu u soo dejiyey qur'aanka suuratu salaada kolkaasuu ilaahay faray muslimiintu yidhi wastaciinuu biالصabri والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين markay culimadu daliilinayaan suuratul faatiha inay laba jeer soo degtay waxay yiraahdaan quraanka markuu salaada nabigu tukinaya marka suuratul faatiha aqri jiray madiina markii la yimidna nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo oo saxaabadiisii dhex fadhiya ayaa nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sanqadh bay maqleen saxaabadu albaab la furay sida uu jiiq u yidhaahdo kalay maqleen markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sanqadha miyaa maqlaysaan markaasay yidhaahdeen haa wuxuu yidhi albaabbaa la furay samada ku yaalla maanta ka horow lama furin malag baa ka soo degaya maanta ka horow adduunyada muu imanin laba hadiyadood oo qaaliya buu inoo wadaa malagaasi waa labada aayadood ee ugu dambeeya suuratul baqara iyo suuratul faatiha labadaasuu siday malagaas abidkiina muu imanin adduunyada maalintaa ka horow markaana way soo degtay kolkaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay saxaabadiisa uu dareensiiyey meeqaanka iyo martabada ay ilaahay agtiisa ka joogto suuraddani wuxuuna asxaabta ku yidhi asxaabtaydaay suuraddan towraadna laguma sheegin injiilna laguma sheegin kitaabka qur-aanka ana kuwa ugu qiimaha badan bay ka mid tahay
xadiid saxiix bukhaari ku yaalla baa nebigu wuxuu la hadlay calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiya oo la odhan jiray abu saciid almucalla wuxuu ku yidhi waxaan ku bari doonaa suurad hiya acdam min suwarin fi lqur'aan suurad baan ku barayaa ugu culus oo ugu weyn qur'aanka kariimka ah masaajidkay galeen markuu baxayey ayuu isagoon u sheegin buu saxaabigii gacanta qabtay wuxuu yidhi nebi allahu adigii iigu ballan qaaday intaynaan masaajidka ka bixin suurad aad iyo aad u sha'ni weyn inaad i bari doonto waa runta wuxuu ku yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin hiya sabcu almathaani waalqur'aan alcadiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxa weeyaan waa suurad qur'aanka kariimka ah ugu sha'niga weyn leh waana sabca almathaani ka ilaahay qur'aankiisa uu ku yidhi sabcan min almathaani waalqur'aan alcadiim toddobada soo noqnoqda iyo qur'aanka cadiimka ah buu ilaahay ku sheegay inay suuratu alfaatixa tahay marka waa suurad soo noqnoqotay oo soo degitaankana way u soo noqnoqotay salaadda dhexdeedana way soo noqnoqotaayoo maalin kasta ruux kastaoo muslimoo xilasaamood ay waajib ku tahay salaaddu 17 jeer ayay waajib ku tahay suurat alfaatixa inuu aqriyo lifadliha salaad haddaad tukato aanad faatixada aqrin wax salaadihii kuuma jirto marka wuxuu nebigeennu sheegay calayhi salaatu wasalaam suurat alfaatixa sha'nigeeda wax la koobi kara inaanay ahayn culimmada islaamkuna waxay tiriyaan asmaa'da suurat alfaatixa waxaanay gaadhsiiyaan ilaa 12 magac sida imaam suyuuti uu kutubihiisa ku sheegayo waxaa ka mida suurat alfaatixa waxaa ka mida suurat shaafiya waxaa ka mida suurat alkaafiya waxaa ka mida ummulkitaab iyo asmaa' kaloo badan oo ilaa 12 ayay ka gaadhsiiyaan culimmada islaamku asmaa'da suuraddani ay leedahay acuudu billahi min ashaytaan arajiim acuudu waxaan magan gelayaa billaahi allaan magan gelayaa min ashayطaani shayطaankaan ilaahay ka magan gelayaa shayطaankii alrajiimi la xooray shayطaan kelmaddu waxay ka timi shaطana shaطanana waxa weeye waa ruuxu markuu adkaado fogaado ee uu xakamadiidka noqdo ee macangaga uu noqdo weeye ayaa shayطaan la yidhaa shayطaanku waa makhluuq adduunyadan inagula nool isagu ina arkaya inagu aynaan arkaynin innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xayثu laa tarawnahu waa shaydaan balwad ka dhigtay inuu xumaha alooso oo khalaa'iqda bini aadmiga iyo haqalaynka inuu lumiyo nin sheekha ayaa wuxuu damcay inuu tarbiyeeyo arday uu isagu barbaarinayey wuxuu ku yidhi maandhahayow haddii aad ku baxdo ay carbisan oo meel ilaalinaya oo uu kugu soo fakado aygii maxaad ka yeeli doontaa wuxuu ku yidhi faraqaan dhagax ka buuxsanoo waan iska caabin intay leeg baad iska celin kartaa muddo dheer baa markaa way isla xiiqaysaan labadiinnuba sidaasi ka roon baan ku barayaa buu yidhi ayga ha la dagaalamine sayidka barbaarsadee un u sheego waxaad tidhaa aygaaga iga qabso isagunbaa kaa joojinayo jooji markaasaad iska dhaaf shaydaanku waa ay edab daran oo hawl badan sayid buu leeyahay waa alleh haddaad shayddaanka iska celis tidhaahdo iskama celin kartidoo waxaan daalin waa madaale eh rabbigii abuurtay ka magan gal oo ilaahay iga celi ku dheh adigu ma arkaysid isagu wuu ku arkayaa marka inaad ka acuudu bilaysatood ilaahay ka magan gashaa kaaga hawl yar inaad adigu tidhaa anaa iska celinaya markaa shaydaanku waa makhluuq dhib badan oo khalqiga wuu habaabinayaa siduu nebigeennu inoo sheegayna salawaatullaahi wasalaamu calayh ilmo nebi aadam kunkiiba 999 buu ku guulaysan doonaa inuu marinka seejiyo walaa tajidu akarahum shaakiriin laudilannahum walaumaniyannahum wala'aamurannahum falayubatikunna aadaana alancaam dhaabahaas iyo dhaartaasuu galay wuxuuna go'aansaday ubadka aadam dhalay inuu sad weyn oo waafiya ku yeesho
waanay u hirgashayoo 999 buu gacanta ku dhigay hal baa ka badbaadaya addoonka sidaasa ee khalaa'iqda intaa in leeg habaabiyey waxaad kaga badbaadaysaa inaad ilaahay ka magan gasho ilaahayna wuu inoo tilmaamayo wuxuu inagu yidhi fafiruu ila allah ilaahay xaggiisa u orda ilaahay magan gala marka waa tacliim waafiya ruuxa mu'minka ah waa daciif haddaanu ilaahay ku xidhnayn bini aadmigu haddaanu ilaahay awood aanu ka haysan كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق روح سمدا لغا سو تووري oo shimbiruhu hawada ay ku qaybsadeen kama duwana marka inaad ilaahay ka magan gasho ibliiska ayuu ilaahay kaaga badbaadinayaa awoodaynu iskaga celinana male ama haysano illa billah oo inaga nidhaahna la hawla wala quwwata illa billah marka ruuxa mu'minka ilaahay ka magan gala waxba ma yeeli karo illa ibadaka minhumul mukhlasin wuxuu ballan ku qaaday waan ambinayaa addoomaha ilaa cibaadaka minhumul mukhlasiin acuudu waxaan magan gelayaa billaahi allaan magan gelayaa allah maxay tahay marka allah waa ism u gaar ah ilaahay kelidii cid la bixi kartaana ma jirto waxay tilmaamaysaa uumaha adduunkan oo dhan khalqay magiciisa weeyaan maxaa farqi u dhaxeeya allah iyo ilaah maxaa farqi u dhaxeeya farqiga u dhaxeeya waxa weeye allah waxay u gaar tahay ilaaha xaqa lagu caabudo keliya ayaa isamka iska leh waa ism calam ah oo u gaar ah ilaahay kelidii lagu sameeyo weeyaan ilaahna waxa looga jeedaa wax kasta oo la caabudo حق هلقو عابدو باطل هلقو عابدو إله باكا الله يرى إس إرق إله وحكز تقول عابدو با إله الله يرى أما حق هلقو عابدو أما باطل هلقو عابدو مركا أعوذ بالإله لما أوران وحا الله أوران يا أعوذ بالله إلهي بان مجنجليا الله بان مجنجليا من الشيطان waxaan ka magan gelayaa shaytaanka madaxa adag leh ee macangaga abaan ka magan gelayaa macangagii arrajiim la xooray ee laga dheereeyay naxariista Alle bismillaah abda'u waxaan ku bilaabayaa kalaamkan iyo qowqan quraankan kariimka abda'u waxaan ku bilaabayaa bismillaah magaca Allah baan ku bilaabayaa allihii arrahmaani naxariista ballaaran lahaa adduunyada gaal iyo islaamba rabbi waa u naxariista oo waxa ay ku kala socotaa waa raxmadda waasica ah arrahiimi allaha naxariista khaaska siiya mu'miniinta weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaahay tabaaraka wa tacaala rahiim wuxuu u nisbeeyay mu'miniinta oo kaliya fi aaya min alqur'aan bay ku taalaayo ilaahay wuxuu oranayaa وكان بالمؤمنين رحيما إلهي مؤمنين أيو الرحيم كود يهي مركا لبدا إري لبدا بنا حريص بيت الماميان لكن حريصتا ويكلا واسع سيهين ويكلا خاصيهم بانو جيدا ورحمانا وانا حريص قالي إسلام با أي هايستانو إلهي وقلنا حريصتا الدنيا دا انت اللي جوغو رحيمنا وحويان وحنانو iyo daryeel si gaar ah oo ilaahay ugu fidiyo inta ku xiran magaca ilaahay baan ku bilaabayaa ficilkayga iyo amalkayga iyo qowlkayga Allah rahmaanka ah ee naxariista ballaaran arrahiim ee naxariista gaarka ah iyo xanaanada gaarka ah mu'miniinta siiya alhamdu mahadnaq lillaahi allah iskale rabbil caalamiin arre edeg dhammaanteed uumiyaheeda allaha u rabbiga ah alcaalam af soomaali waa carre edeg weey carre edeg dhammaanteed allaha u rabbiga ahee iska leh ayaan mahad u naqayaa allaha carre edeg dhammaanteed rabbiga u ah ee barbaariyaha u ahi ee naxariistaha u ahi
مالك أوه ربي مالك والله معنية خالقنا والله معنية مربنا والله معنية وكي أبوري وكي بربرشي وكي هنتيلها أوها الله هنتيلها كوه أن عيد الله شيئا عرئدك دمانتين أيان مهد النقيا الرحمن إله النحريست واسع عليه الرحيم النحريست خاص عليه أيان مهد نقو علينيا مالك يوم الدين الله مالك ملكي جوده لإسكاله هنتي لها أوه يوم الدين مالنت الدين تا يوم الحساب بالغوضا مالنت الله إس حسابنا يوم مركا مالك بان أقريو ألف بان كتاجي مالكنا وحوية هنتي لها وحقراء قراءة أو سبعية ملك بائيناء ومالك يوم الدين راويه ناصر لبضع الشيخ با إسكاله مالك ملكنا علماء كلو دنبا أخريضا تضبضا كمدا مركا ملكنا وبقر مالكنا وملكيل هنتيل وحان مهد النقيا ربك إيا بربارشها إيا خالقة أرئدك دمانتين نحريس بدنها نحريس دقارك عليه بقر كمالين حسابتا أيان مهد علينيا إياك أديق أوكلي أمبان ربك صفادا له نعبدك عابدينا وإياك أديق أمبان كلدا نستعين كاقرقار دلبانينا هدي أي صداتاي اهدنا إسوكا ديبنا يا الله ونقوهانوني الصراط المستقيم جدك التوسن إدرالك تاي نقوهانوني جدك التوسن إدرالك تاي واكي صراط الذين وحان أجيدا هدان سكلا وإراهدو وضدي الذين كوا أنعمت آد النعميسي آد الراحيسي عليهم دشودا الله يوكوا ديق دادا سيسي دشودا آد يشي ديق دادا أيان كودا طريق الراعين غير المغضوب معها كوا دو عروتي دشودا ولا الضالين مناهن كوي هبابي كوا إلهي وعروضي باليهود لغا كوا هبابين النصارى أيا لغا عدًا أين الدلبان ودودو إن الرعننا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مع الذين أنعمت عليهم عد قوم كلون نعمية آيات داسات المانطي صفك آدون يسينات كم من نقطنا آدمر والبصلاة دحديد آد إلهي كبر يسينات كم من نقطنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أفرتا قوم أيي سوغليان أو آد إلهي كبر يسا وحاد إلهي كم جنجليسا إناد كم من نقطه طريق يهود إناد راعده إيه طريق النصارى يهود كوا اللومي بالله يراهدا نصارى يهود كوا الله عروضه على إلهي كل عضي بالله يراه نصارنا وحويا وانمانك كو أبترصدا نبي الله عيسى إنه إلهي هاي آمنسن أما إن إلهي آمنسن ويان وبالله توفيق